iskoorimaadka oo u dhaxeeyay ciidamada dawladda iyo kooxda al-shabaab wuxuu ka dhacay deegaanka Bulmareer oo qiyaastii magaalada Xudur u jira 47 kiiloomitir. Wuxuu bilowday dagaalka markii ciidamada dawladda ay weerar ku qaadeen fariisin kooxda al-shabaab ay ku lahaayeen deegaanka lagu dagaalamay. maamulka gobolka Bokool ayaa guulo ka sheegtay dagaalka ay la galeen kooxda al-shabaab. Gudoomiyaha gobolka Bokool Shiina Macalin Nuurow ayaa sheegay in hal askari uu kaga geeriyooday dagaalka dhanka shabaabna ay ka dileen ilaa 13 askari sida hadalka uu dhigay. maanta waxaa dhacay dagaal wuxuuna ka dhacay meel la yiraaho Banmareer oo degmada Xudurna u jirta 47 kiiloomitir ceel berdana u jirta 43 kiiloomitir dagaalkana wuxuu u dhaxeeyay kooxihii nabadiidka ah ee caadiistay inay shacabka dhibaateeyaan iyo ciidamada dawladda. Allah u naxariisto hal askari ayaa nooga shahiiday annaga hal askari laba askarina waa nooga dhaawacantay ayaguna ilaa iyo 13 qof weerarka fariisimo ay ayaga lahaayeen ayuu ka dhacay waliba si dhabagal ah ayuu ku bilowday weerar dhabagal ah ayuu ahaa deegaano badan ayuuna ku fiday maxay ahayd toole waa garan kartaa ciidan dhabagal sameeyay meesha dhabagalka laga sameeyana waa wado ay iyaga isticmaalayeen ayay ahayd. al-shabaab ayaan ka hadlin dagaalka ay la galeen ciidamada dawladda ee ka dhacay gobolka Bokool lamana oga inta uu la ogyahay khasaaraha ka soo gaaray dagaalkaasi. howlgalka ay sameeyeen ciidamada dawladda ayaa ku soo beegmayay xilli magaalada Xudur ay muddooyinkii ugu dambeeyay go'doonsaneyd isla markaana aysan soo gali karin gaadiidka badeecooyinka.